maxamed cumar carti ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta shir gudoomiyay shir looga hadlayay qorshaha horumarinta qaranka dalka waxaana ka soo qayb galay ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya xogayaha joogtada wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya shirka qodobada looga hadlay ayaa waxa ka mid ahaa qorshaha horumarineed ee dalka saddexda sano ee soo socda iyo beesha caalamka iyo qaramada midoobay sidii Soomaaliya ay ugu taageeri lahaayeen dhanka dhaqaalaha iyo amniga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya uu xilligan galay waqti kala guura qorshaha horumarinta qaranka ee saddexda sano hadii lagu guuleysto ayuu yiri waxa dhabo wanaagsan u furaysa dawladda cusub ee soo socota waxa sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu sheegay in qorshaha horumarinta qaranka lagu saleeyo horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo khayraadka badda iyo bariga ee dalkeena Ibrahim Aadan Maxamed telefishanka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho